shan xaqiiqooyin oo yaab leh laga yaabo inaadan hore aaga maqlin dhulweynaha Australia. Xaqiiqada koowaad, Australia waa jasiirad, waddan iyo qaarad. Waa jasiiradda ugu weyn adduunka, waa dalka lixaad ugu weyn caalamka, laakiin ah qaaradda ugu yar. Australia waxay la mid tahay masaafada London iyo Moscow isku jiraan. Xaqiiqada labaad, inta badan duurjoogta qaar ee Australia lagama helo meel kale ee adduunka ah. Tusaalooyinka waxaa ka mid ah koalas, kookes, platypus, wombats, emus iyo kangaroos. Duurjoogtaas aan soo meel aan Australia ahayn lagama helo. Xaqiiqada saddexaad, naasleyda Australiyaanka ah platypus iyo echidnas waa labada naasley kaliya ee adduunka ku nool ee ukunta u bixiya si ay u dhalaan. Xaqiiqada afaraad, dhulweynaha Australia waxay hoy u tahay 1500 nooc oo caara ah iyo 4000 nooc oo quraanjo ah. Xaqiiqada shanaad, Australia waxay leedahay in ka badan 750 nooc oo xamaarata ah, in ka badan waddan kasta oo adduunka ah. Yaxaas biyuudka cusbada ah ayaa tusaale u ah xamaaratada ugu weyn adduunka, waana mid ka mid ah makhluuqa ugu da'da weyn ee meeraha. Xaqiiqada lixaad, dadka Australiyaanka ah waxay leeyihiin af-yaqaan ama afkusaar, mararka qaarkood loo yaqaano Australian ama Australian. Iska ilaali bloog nin iyo shaylaa naag. Erayadan waxay ku yaalaan musqulaha dadweynaha. Xaqiiqada toddobaad, magaca Australia wuxuu ka yimid ereyga Laatiin ah oo ah Australis oo micnaheedu yahay koonfurta. Xaqiiqada siddeedaad, kangaroos iyo emus gadaal uma socon karaan, waxay ku sawiran yihiin jaakada hubka ee Australia. Astaantu waa horumar. Australia hore ayay u socon kartaa oo kaliya ayaa laga wadaa. Xaqiiqada sagaalaad, waxaa jira in ka badan 10,000 oo xeebood Australia ah. Haddii aad booqato hal xeeb oo cusub, waxay qaadan doontaa ilaa 30 sano inaad aragto dhammaantood. Xaqiiqada tobanaad, Canberra oo ah caasimadda dalka Australia waa magaalo yar oo ay ku nool yihiin 472,000 oo qof oo u dhaxaysa Melbourne iyo Sydney. Goobtu waxaa loo doortay inay noqoto caasimadda Australia 1908 si tanaasul ah, iyadoo Melbourne iyo Sydney ay rabeen inay noqdaan caasimadda. Xaqiiqada 11aad, The Great Barrier Reef oo ku taal xeebta Queen Island waa nidaamka reefka ugu weyn adduunka. Waa dhismaha kaliya ee ugu weyn adduunka oo ay sameeyeen nooluhu. Waxaa laga arki karaa hawada sare. Xaqiiqada 12aad, Kagari oo hore loo oran jiray Fraser Island oo sidoo kale ka baxsan xeebta Queen Island waa jasiiradda ciidda ugu weyn adduunka. Xaqiiqada 13aad, Australia waxay hoy u tahay qaar ka mid ah saamaynta dhagaxyada ugu da'da weyn uguna qadiimisan ee dhulka. Xaqiiqada 14aad, Australia gudaheeda kangarooska ayaa ka badan bini'aadamka. Kangaroo waa mid ka mid ah noolaha ugu caansan Australia. Qiyaasaha la sameeyay ayaa sheegaya in 50 milyan ah ay gaarayaan kangarooska ku nool Australia, taasoo ka badan tirada dadka. Xaqiiqada ugu dambeysa, xaqiiqada 15aad, tiknoolajiyada Wi-Fi aan isticmaalno waxaa ikhtiraacay qof Australian ah oo ka socday ururka cilmi baarista sayniska iyo warshadaha ee dowladda dhexe Australia.